الحمد لله ثم الحمد لله ثم الحمد لله. الحمد لله على كل حال. caawa halkan waxaan soo istaagnay bishaarada la sheegay alxamdu lilaah oo dowladdii ay ku guulaysatay inay gacan ku dhiglay soo qabato. waxaan mahad u jeedinaynaa bacd allah laamaha dowladda dhammaantooda, gaar ahaan madaxweyne xasan sheekh oo arrintan markuu soo fargeliyey oo isla markii fududaatay in lasoo qabto gacan dambiilihii oo gabadhayda aniga saa ujeedin u galay. uma waxaa mahad iskale haddana laanta nabad sugidda oo ugu tagtay meeshii duurka ugu joogay. ilaahay mahaddiis weeye. gaar ahaan waxaan mahad u celinaa taliyaha nisa oo arrintan si dardar u geliyey dhammaan laamaha amniga, mahad salaad. waxaa kaloo mahad u jeedinaya dhammaan laamaha amniga iyo baarlamaankii golaha shacbiga oo isagana maanta shacabka tusay xilka uu u fadhiyo meesha. shacbiyeyna tusay in shacbiyadu meesha uu u fadhiyo iyo dhibaatada shacbiga loo geysto inuu ka danqanayo uuna wax ka qabanayo oo go-aani saaran. shacbi weynihii dhammaan iyagana way mahadsan yihiin. dhammaan waxaa kaloo mahad weyn iska leh ilaahay ka sokow. inta mahaddan celi ka bacdi dhammaan dadkii ila xanuunsaday ooba iga xanuun badnaa aniga oo insaaniyadda dareemaya damiirka lahaa ka danqaday arrintan in lasoo qabto ninkan oo rabbi tuug dhammaan juhdi ku bixiyey inay la shaqeeyaan laamaha amniga. jazaakum allahu khayran ayaan leenahay. sidaas darteeda waxaan maqalnay in la keenay lasoo qabtay ninkii dambiilaha ahaa. waxaan codsanayaa anigoo ah waalidka luul aabeeda ah, wax meydka loo dhigay meeshaan oo loo duugo waxay tahay in lala duugo ninkaas, cadaaladda la hor keeno, cadaaladda ay markaas luul ay leedahay la siiyo sida u dhaqsaha badan. laamaha amniga waxaan ka codsanayaa maadaama ay keeneen oo ay soo qabteen inay noo keenaan haddana ay cadaaladda la marsiyo oo isagana dhinaciisa laga duugo ayaan ka codsanaynaa. meydkaas markaas waxaa meeshan loogu xaqiray in lala sugo cadaaladdii ay lahayd luul cabdicasiis maxamed. marka insha allah dowladda waxaan ka codsanaynaa inay noo dhammaystirto cadaaladdan ka sugaynay. ilaahay ka sokow iyaga awoodda maanta waddanka ah. sidaas darteeda kheyraad idin rajeynaya. wabillahi towfiiq. asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu.